saaki soo baxayo in ruux haween ah oo qarax sida markaa magaalada ay ku jirto inkastoo qaraxyadu ay soo badanayaan faafaynada dheeraadka ay ka soo baxay qaraxyadii ismidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay saacada markay ahayd abaarihii 10:40 ilbiriqsi bar control ciidamada ammaanku ay ku leeyihiin agagaarka isgoyska kilometer 4 gaar ahaan wadada ee aada garoonka diyaaradaha aadan cadde ruuxa waday gaarigani qaraxa oo haatan la sheegay in uu ahaa gaarigaasi noociisa Toyota Noha ya ciidamada ammaanka ay ku sugan bartka controlka waxa ay isku dayeen in uu marka asiga ruuxaasi xoog ku dhaafo balse ciidamada ayaa waxa ay la sheegay in ay diideen waxaana dad goobjoogayaal ah ay sheegeen in ciidamadu ay ka shakiyeen inta uusan isqarxin wadaha gaarigaasi qaraxaasi waxa ka dhashay khasaaro marka naf iyo maalba oo ku dhawaad 20 ruux ayaa ku geeriyooday halka dhaawacyadu ay intaasi ay kasi dhaafsatay yihiin maamulka isbitaalka Madiina ayaa sheegay in la gaarsiiyay meydka 17 qof oo marka isku jiro dhaawacyo iyo dabcan dad marka halkaasi markii la geeyay ay ku dhinteen waxaana jira dabcan isbitaalo kale oo la gaarsiiyay qaraxyadaasi dadkii ku waxyeelay waxaana ilaa hadda aan la ogeyn tirada rasmiga ah haatanba dadka dhimashada iyo dhaawaca uu soo gaaray inkastoo faafahna iyo warar kale ay soo baxayaan waxaa soo baxayo warar kale ee kala duwan dab halka ka dhashay qaraxaasi uu dhaliyay oo kaalin shidaal halka ku taalay afafka hore ee hotelka Africa waxaana gurmadka gaadiidku dabdamiska waxa dabcan lagu guuleystay in daqiiqado kadib halka dabkaasi laga waqtiyo laga damiyo dadka qasaaruhu ka soo gaaray qaraxaasi ka agdhawaa goobta ayaa u badnaay dhalinyaro ku xamaal jirtay mootada laba lugooley ama bajaaj sida loo yaqaano oo dadka ay ku geen jirtay garoonka diyaaradaha askartii celisay gaariga ay dadka marka dabcan doonay in ay ka dhoofaan garoonka aadan cadde oo la sheegay in ay u badnaayeen xujay doonaysay in ay gutaan amaasha xajka lamaha ammaanka dawladda Soomaaliya wali ay kama waysan warbixin qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay taliyaha ku-xigeenka labaad booliiska Soomaaliya General Sakiya Hussein ayaa barteeda ay ku leedahay baraha bulshada waxa ay ku tiri abaarihii 10:40 ilbiriqsi ayay ciidanka amniga ka hortageen baabuur noociisa yahay Toyota Noha oo doonayay in uu marka dabcan xoog ku maro waxa weeye barka controlka ay ku leeyihiin kilometer 4 halkaasi oo ku qarxay waxaana qaraxaasi ku dhintay askar iyo dad shacab ah qaar kalena ay ku dhaawacmeen allaha u naxariisto intii dhimatay intii dhaawacantana caafimaad degdeg Allah siiyo insha Allah barnaamijkeeni waxaan dabcan si gudageli doonaa insha Allah haweeney marka la sheegay in qarax ay la soo gashay saaki magaalada Muqdisho war ayaan idinka ka soo gudbi doonaa fadlan haddaan ku cusubtahay subscribe noo saar gamalkana faro si uu ku soo gaaro wararkii u dambeeyay amaraha Soomaaliya caalamka ma sanid